dabinno iyo shirqoollo loo dhigay muddo 40 sanadood ku dhow ayay ka badbaaday jabhadda xoreynta Ogaadeniya ee Onalif kadib dabar adayg ay muujiyeen aqoonyahan Faysal Roble ayaa wax ka qoray arrintan waxaana inoo soo jeedinaya wariye Cabdi Fataax Mursal dabar adayga jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya iyo dabar jabinta nacabka وعوانكا hormadan ama faaladan uu qoray qoraa Faysal Roble waxaanu ku bilaabay jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya ama si loo yaqaano ONLF waxay ka mid tahay jabhadaha dhaqdhaqaaqyadooda qadiyadoodu ugu facweyn yihiin Afrika iyo Itoobiya oo isu dhiibka halkan Soomaali galbeed marka la isku wada daro waa qadiyad halgankeedu tahan yahay muddo 70 sano ka badan ONLF nidaamka ay maanta u jirto waxa la aasaasay 1984 waa dhamac halgan oo ka soo baxday ramadkii WSLF 1991 waxay ka mid noqotay jabhadihii dib ugu soo noqday Addis Ababa heshiisna la galay EPRDF balse xuquuqda Soomaali ka maqan si nabad iyo dimuqraadiyad ah loogu dayo hase yeeshee TPLF oo ugu tun weynayd hubantii EPRDF ayaa taxshiirad ku furay ONLF waxay TPLF iyo EPRDF u adkaysan kari waayeen hamiga ONLF ee ku qotoma in Soomaalida deegaanku ka tashato aayahooda maraan socdaalku yimid jigjiga 1992 waxa dagaal hub la isu adeegsaday dhexmaray ONLF oo dhinaca iyo TPLF EPRDF iyo OPDO oo dhinac ah xulfadaasi xaraanta ah ayaa ogaatay aqlabiyada ay ONLF ku dhex leedahay Soomaalida deegaanka xataa kuwa aan ka mid ahayn ONLF waxay jabhadda u arkaan adin isu taagi kara danaha dhulka iyo dadka Soomaaliyeed inta la isku diidan yahayna waa la sixi karaa istiraatiijiga ama humaaga waa lagu wada raacsan yahay mar haddii ONLF duurka gashay kadib markii OPDO iyo TPLF dagaalka ku qaadeen looma teela dhigan dagaalka hubaysnaa ee socday intii u dhaxaysay 1992 ilaa 2018 waxa ONLF adduunka tustay in Soomaali wax ka maqan yihiin meelas oo reer galbeedku wataan ayay ONLF ka waaban weyday dagaalkii ay jabhaddu coballe ku qaaday si adduunka loogu soo jeediyo khayraadka Soomaali leedahay ayaa qayb weyn ka noqday arrimaha istiraatiijiga ah ee haddeer adduunku ku xisaabtamo ilaa maalintaas dagaalka coballe ka dhacay 2007 ONLF inaba may nuuxsan dagaal dheer iyo dadaal badan ayay maamulada kala duwan ee Itoobiya ku bixiyeen siday ONLF sumcadda uga dili lahaayeen haba ugu horeeyaan TPLF iyo EPRDF waxay doonayeen in ay rayul caamka bedelaan oo ay yiraahdaan ONLF waa argagixiso taariikhdu markay ahayd 1998 warlagaysi uu qabtay Congress-ka ama golaha shacbiga ee Mareykanku waxa lagaga dooday arrinka ah in ONLF la geliyo liiska argagixisada iyo in kale Dr. Edward Kelly oo nu saaxiibanahay macallinna iigu ahaa jaamacadda UCLA ayaa kamid ahaa khubradii warbixin ku saabsan qadiyada laga codsaday maalin khamiis ah ayuu soo wacay intaanu Washington aadin Faysalow maqaalkii aad ku difaacaysay qadiyada iyo ONLF eed ku daabacday Ethiopian Review ma ii soo diri kartaa ayuu iga codsaday intaan aad u farxay ayaan gacanta ugu geeyay maqaalkaas oo ciwaankiisu ahaa Politics of Self-Determination and the Ogaden Question guul ayuu Dr. Keller la soo hoyday oo ONLF waxa Mareykanku u aqoonsaday jabhad aan argagixiso ahayn isla markaana u halgamaysa qadiyad siyaasadeed Keller waxa uu sanado badan nagala qayb galay dood wadaag sanad kasta ka dhici jirtay shirka sanadlaha ah ee African Studies mawduuca ahaa dib u eegista ama dib u milixsiga geeska Afrika waxa qayb ka ahaa Keller Faysal Roble Saciid Samatar Allah ha u naxariistee Maxamed Xasan Ali Oromo Asefa Meherato oo hadda la taliye u ah Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed Alam Seged Abi oo ahaa taageero TPLF ka tirsan tilmaamaha uu Dr. Keller maqaalka aan kor ku xusay ka qaatay si uu dacwadda taageeraysay ONLF u adkeeyo waxa kamid ahaa TPLF iyo EPRDF oo doonayay inay awood buuxda gacanta ugu galiyaan Ethiopian Somali Democratic League maadaama ay dan wadaag la yihiin xisbiga talada hayay ee TPLF iyo EPRDF ONLF waxaan ka bixiyay iyada tafaasiil ah in ay u taagan tahay xornimo la gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed ee deegaanka waa laba Soomaali wada sheeganaya laakiin kala hadaf ah ayay murtidu tahay ONLF isma bedelin magaceedii iyo mabdigeedii ee waa halkoodii xoogagii dhabar jabinta ku hayay ayaa iyagu dhowr jeer isbedbedelay
siyaasadana ka baxay oo haddana shaar kale ku soo gala waa arrin ilaa haddeer socota qodobka ah in ay intooduba Addis Ababa adeegayaal u yihiin innaba isma bedelin dhabarjabinta ONLF lagu hayo waxaa dumaalay oo maanta mulkiile ka noqday xisbiga barwaaqo ee BB lama soo koobi karo adeegayaasha ka howlgelayay in ay ONLF wiiqaan inkasta oo madaxda BB ugu gacan kulul yihiin uguna naxariis daran yihiin Soomaali intii ina soo martay mowduuc kale ayaan ku tafaftiri doonaa ayuu yiri qoraaga faaladan Masar Faysal Rooble oo sii wada waxa uu yiri maalmahan waxa aan xuseynaa talaabada uu qaaday ra'iisul wasaare Rooble ee uu liiska argagixisada kaga saaray ONLF 2017 ayay Soomaaliya ku dartay liiska argagixisada ONLF waxa liiskaasi oo dawladaha adduunka loo qaybiyay dajiyay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisii Xasan Cali Khayre dhowrkan maalmood ee u dambeeyay waxa ila xogagaal ahi ila wadaageen in madaxweyne Mustafa Cagjar xidhiidh dhow la lahaa Xasan Cali Khayre xilligii Cabdikariin Sheekh qalbi dhagax la afduubayay shakhsigan oo xilligaas ii sheegay in uu joogay Dhuusamareeb ayaa yiri sida tan Mustafa wuu ogaa oo talada waa laga qayb galiyay xilliga la dhiibayay qalbi dhagax mar Allah ka dhigo hadduu iga yeelo waxaan isku dayi doonaa in aan shakhsigaasi u qorsheeyo in uu waraysi caam ah bixiyo xog aan ka helay laba mas'uul oo jigjiga jooga waa markaan u sheegay in aan maqaalkan qoraye ayaa arrinka ila wadaagay xilligii ay dawlad deegaanka Soomaalidu ku biirayeen xisbiga barwaaqo waxa ay diiwaan geliyeen in deegaanku leeyahay 3 cadow ama 3 xoog oo nabadgelyada caqabad ku ah waxaanay kala yihiin waa sida loo diiwaan geliyay 1 heego iyo hadhaagii maamulkii hore 2 al-shabaab iyo 3 jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ONLF waxa u dheer madaxweyne Mustafa in uu kharash badan ku bixiyay sidii uu u burburin lahaa ONLF hatta warbixino aad u waxyeeli kara mas'uuliyiinta qaarkood ayuu gudbiyay waxa kale oo la xasuustaa turjumaadii beenta ahayd ee uu ka sheegay fagaaraha jigjiga xilligii Admiral Maxamed Umar Ismaan iyo jabhadda ONLF ku soo laabteen jigjiga hatta waxa uu siyaabo badan ONLF ugu dacweeyay in ay xasuuq umadeed geysteen intaasi oo dhami waxay ka mid yihiin dhabarjabinta nacabka ee ONLF u dhabar adeegtay 3 mas'uul ayaa dagaalo ba'an la galay ONLF xilliyadii kululaa waa xilliyadii ay Soomaalinimadu turunturootay Itoobiya iyo adeegayaasheeduna tawaan iyo tamar isbideen intaasi oo dhabarjabin ah ONLF way ka samata baxday sababtuna waa 2 arrimood oo aan dhowr jeer idin la wadaagay Soomaalidu axmaaro iyo inta u adeegta war iyo wacaaltoona kama dhageysato wax kasta oo ay Farmaajo Khayre iyo Mustafa ka sheegeen ONLF waa dhuuso dameer jabhadda ONLF waa dhaqdhaqaaq umadeed ama People's Movement hatta kuwan aan ka mid ka ahayn ONLF waxaan u aragnaa derbi aan la dhaafi karin waxay ka turjumaysaa xanuun iyo xarakaad umadeed kuwa dhabarjabinta ku haya innaba mabda iyo adkaysi la mid ah kan ONLF malaha haddaba 3 mas'uul ee nool dhabarjabinta ay kula kaceen ONLF ma ka toobad keeni doonaan mise kaydka taariikhda ayaynu u daynaa su'aasha ayuu faaladiisa ku soo gabagabeeyay qoraa Faysal Rooble